bariga dhexe Iiraan waxa ay ku hanjabaysaa inay dagaal diyaar u tahay isla markaana la dhaafay marxaladihii nabad xal ku doonka halka gaadiid badeedka dagaalka ee Mareykanku ku sii siqayo xadad biyoodka Iiraan taasoo loo arko inay xirayso albaab kasta oo suurta gelin karay wada hadal xiisada lagu qaboojiyo oo ducahan dhexmara wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi ayaa lagu waramay inuu maanta wada hadallo meeqaam sare leh Turkiga kula yeelan doono madaxda wadankaas waxaa xogtu warisay in Tehran kulamada caynkan uga gol leedahay xoojinta cilaaqaadka kala dhaxeeya dalalka ay danaha wadaagaan ugu Turkigu waa dalka haatan dadaalka ugu xoogan ku bixinaya wada hadal ku dhameynta xiisada Mareykanka iyo Iiraan balse booqashada Abbas waxa ay ku soo beegmaysaa xilli Iiraan u muuqato inaysan arag dariiq wada hadal oo xal ka keeni kara xiisada kala dhaxeysa Mareykanka shalay waxa ciidamada Iiraan loo qaybiyay tiro kun gaarta oo drone-iska dagaalka ah tan waxaa loogu yeeray mid ahaan tallaabooyinka muujinaya diyaar garowga xooggan ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee ugu jirto istifaac military oo dhamays ah doc kale ficilkani waxa uu si dhab u muujiyay inaysan Tehran u muuqan wado aan istifaac ahayn oo xaaladan lagu wajihi karo sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Iiraan u qaabilsan darsidda suurtagalnimada wada hadallo lala galo Mareykanka ayaa laga xigtay inaan Tehran hadda wax wada xaajood ah oo rasmi ah kula jirin Mareykanka waxaana uu sarkaalkani xusay in boqolkiiba boqol ay Iiraan haatan diiradda saarayso istifaaceeda oo kaliya Mareykanku sidaan horey u warinay waxa uu doonayaa in Iiraan ka tanaasusho samaynta iyo horumarinta gantaaladeeda ridada dheer iyo inay guud ahaan baabi'iso barnaamijyadeeda nuclear-ka taas Iiraan maya ayay uga jawaabtay diidmadan iyo culayska ciidan Mareykanka ee kordhaya ayaana loo arkaa marxaladaha sii fogeynaya in dhinacyadu wada xaajood isugu yimaadaan dalal ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Ruushka ayaa lagu waramayaa inay kaalmeynayaan diyaar garowga military ee Iiraan taasoo Tehran ka dhigaysa inaysan xarbigan istifaac kali ku ahayn midda oo dhinaca kale xoojinaysa inuu qarxo dagaal weyne military oo aan natiijada dhamaadkiisu qiyaasta ku jirin dhinaca kale wadamada Yurub ayaa qaaday talaabo ay marar badan uga digtay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan taasoo ah inay si rasmi ah liiska ururada argagixiso ugu dareen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan oo ah hay'adda military ee ugu awoodda badan ciidamada Jamhuuriyadda Islaamiga ah go'aan ay wadajir u soo saareen wasiirada arrimaha dibadda dalalka Yurub ayaa si rasmi ah ciidamadan loogu daray liiska argagixisada halka sidoo kale ay dalalkani cunaqabatayn docda xuquuqda aadanaha ah ku soo rogeen 15 sarkaal oo Iiraani ah iyo 6 hay'adood oo dalkaasi laga leeyahay talaabadan ayaa wadamadani ku micnayeen inay tahay ciqaabta waxa ay ugu yeereen ficiladii ciidamada ilaalada kacaanku ku beegsadeen dibadbaxayaashii ku dhintay mudaharaadyadii dalkaas hareeyay asbuucyadii dhowaa ma aha markii koowaad ee ciidamada ilaalada kacaanka lagu daro liis argagixiso oo Mareykanka ayaa ciidankan iyo xitaa kuwa lagu magacaabo Quds Force liiskan ku daray April 2019 halka Canada iyana ciidankan liiskaas ku dartay June 2024 xitaa bariga dhexe boqortooyada Sacuudiga iyo Bahrain ayaa ciidankan iyana liiska argagixisada ku daray Iiraan marar badan ayay ka digtay inuu burburi doono cilaaqaadkeeda kala dhaxeeya wadamada Yurub haddii ay talaabadan qaadaan inta kaliya ma aha waxa Tehran ku hanjabtay inay jawaab celin aan la mahadin kala kulmi doonaan dalalkani haddii ay ficilkan ku dhiiradaan balse waxa muuqata inaysan wadamadani markan dheg u jalaqsin baaqyada iyo hanjabaadda ishuwan ee Iiraan sidaan horey u niri ciidamada ilaalada kacaanka oo la curtay kacdoonkii Iiraan wadaadadu talada wadanka kula wareegeen ee dhacay 1979 waa hay'ad ciidaneed ugu xoogan wadankan tiro ahaan waxa lagu qiyaasaa ilaa 150,000 oo askari kuwa oo isugu jira ciidamada cirka badda iyo kuwa maamula istiraatiijiyadda hubka Jamhuuriyadda Islaamiga ah halka ay sidoo kale safka hore uga jiraan xuduudda qaybaha ciidamada Iiraan ee dalkani xilligan adag ku tashanayo